بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعنه ونكسن داود يا لمانتينبا كنا سو دبادة برنامج كبيرها تي في دولة قبلات كيرشبيله oo toddobaadkiiba mar aad ka daawataan barnaamijka toddobaadkan waxa halkan idin kala socodsiin doona aniga oo Maxamed Deeq Yuusuf waxyaabaha barnaamijka aad ku daawan doontaanna waxa ka mid ah beeralayda ku nool magaalada Jowhar oo diyaar garoobaya tacbashada beeraha xilliga guga iyaga oo ah xilliyada ugu fiican ee la tacbado beeraha wasiir ku-xigeenka wasaaradda beeraha dowlad goboleedka Hirshabelle Maxamed Bashiir Qaasim Daqare oo kormeer indheendheenaha ku tagay kanaalada iyo beeraha ku yaala tuulooyin ka mid tahay tuulada Kulundi qodobadaasi qodobo kale ayaad barnaamijka ku daawan doontaan haddii ay bakaraal noqdo daawadayaal ee ku soo dhawaada mar kale barnaamijka beeraha وهاجاك داود يالا إنه كبلاونة بيرليدا كنول مقالة جوهر أيها هذا وضع ديار جروجي جدا بيجي جران تعبشة بيرا حلقة جوا حصيه شيء واحد جرتاع عبسي كقبان فتهذا وسميه وبيجا الشبل مرا جوالدا هيران يو شبلوين كا هفرتي سنة لصق دافع حلقة تعب كا سنة دي هوري أيها واحد سحنا يسميين فتهذا يعبارة يسكت دافع xiliga guwa hadaba Cusmaan Ibrahim Amiin oo kamid ah beeralayda tuulada Beexaaw ee duleedka koonfureed ee magaalada Jowhar ayaa TV-ga Hirshabelle ugu waramay sida beeralaydu ay ugu diyaar garoobeen tacbashada beeraha xiliga guwa isagoo noogu waramay dalagyada ku fiican xiligaani in la tacbado hadaba waa kan Cusmaan Ibrahim Amiin oo arimahaasi ka hadlaya الحمد لله سفي عن وفورت بيرها مانتا سفي عن وبرواقيسين روب آت وفي عن ونود أي قليل جوجنا سفي عن هذا علامة كذا يسارين وفي عينهن الحمد لله أذيك كل هذا ما أركتاي روب يرين نما هيسو ما أركتها الحمد لله وسفي عن وفي عين بيرها برواقة واي روب كي ما أركتها وسفي عن ونود أي عندنا بيرها فلا لو بلابرا يامبا لو بلابرا وما أرتاي بالكي هذا الحمد لله ربك درتي ساد لو فلايه وما أرتاي قيانا هايو هذا قيان كسبحنا الحمد لله وفلينا ويان بيننا dalagyada ugu fiican xilligan kale in la tacbado dalagu uu yahay beeralaydan inay tacbadaan ay jecel yihiin ama xogaa la isleeyahay faa'iido laga helo ama way ku fiican tahay marka hore xilliga lagu jiro iyo qaab xilliga waxa la tacbado xilliga uu yahay xilliga waa guuga horta xilliga guuga oo galeeda la dhigay waay beeraha oo marta xilliga oo fiican oo laga tacbado yaanyadana sideeda idina hadda xilligan guuga ee qabowgeeda waa ku fiican yahay idina labadaas hadda meesha oo muhiimsan oo dalaga maanta oo marta galeeda iyo yaanyada marta iyo salbukada iyo intaas maanta xilliga guuga ay horta ay u fiican yihiin xilliga deerta waa sisin iyo qara iyo marta yaanyada sideeda hatta markaas bushigeeda iska badan waxa hadda oo macaan u ah waa galeyda waa hadda ma aragta hadda oo la gaday sida hadda oo sida inay raqiisanto maleynaa markay hadda ay soo go'dana kulay dhulkaynu iimaanay barwaaqadeeda raqiisay soo noqonaysa ma aragta alxamdulillah adiga waa xilib fiican horta oo guuga waa xiligi guuga waa xiliga guuga ka dhawaajis in lagu jiro xiligan xiliga ku horeeyay oo in abaar aheedaan rajeenaa xogaa culis badan ee beeraha iyo dadkii beeralayda u haystay wabigu eber ahay roobkii oo yaray arintaas oo kale sidee u saameysay beeralayda si weyn u saameysay waayo dhowr fasal oo maleena inay roob oo de'in maanta beeriya hatta khasaar badan la kulmay sida bariiska iyo galeyda iyo khasaar badan la kulmay oo ma aragtay wax saas laga faa'iido malaha hadda alxamdulillah waa hadda beeraha si fiican loo tabcuha beeraha saa'ida loo tabcay ma aragtay beeraha dhan waa badar galeeya lagu wada dhigtay wax kale hadda oo lagu dhigi malaha waayahay aad u maasan tahay waxa kale oo ku weydiin lahaa isheeg
xaqlan ku weydiila marka baaqa aad dir lahayd maadaama ka beerley ahaan maadaama aad kamid tahay beerleyda magaalada Jowhar baaqa aad u dir lahayd hadii ahaan lahayd dhinaca beerleyda oo kale xilligan inay ka faa'iideysan lahaayeen mise inay iska jiifan lahaayeen waxaan u sheegayaa dadka beerleyda ah inay ka faa'iideystaan waa xilliga oo fiican hadda hubiga waa noo fadhiyaa roob alxamdulillah waa ka meel walba ka da'ooya meelii abaarta laga soo sheegi jiray xataa waa hadda waa fiican yihiin roob fiican ka da'oohayo beeraleyda waxaan u sheegayaa inay tacabkooda si fiican ay u sii wataan nin walba meeshuu beer ku leeyahay inuu iska tacbado kiisa laba jibal xataa ahaato inuu tacbado oo ma aragtay sida hodhow abaarana gashi iyo sida loo dhihin maarta hadda aarana la haystaa oo roob fiican hadda da'oohayo roobkan waa roob weyn maan roob yar xataa ma jirto waa meel walba xamra oo sakeysay oo shalay si fiican oo da'ayo dadka ma aragtay xataa dad ku dilo oo la dhahay alxamdulillah anagana baadiyaha hadda aan joogno waa noo da'ay oo hadda falla'na beeray ma aho marka alxamdulillah waa dadka beeraleyda taas oo bishaareynaya inay ma aragtay ka faa'iideystaan dhanka kale Macaani Cabdullaahi Ibraahin oo kamid ah beeraleyda ku nool magaalada Jowhar ayaa TV Hirshabelle u sheegay in saddexdii sano ama saddexdii fasal ee la soo dhaafay uusan tacban wax dalag ah isagoona u sababeeyay abaaraha dalka ku soo noqnoqday sanadihii tagay Macaani Cabdullaahi oo arrimahaasi ka hadlaya ayaa wuxuu yiri bismillahir rahmaanir rahiim alxamdulillahi rabbil caalamiin anaga waxaan ahayn beeraley ah oo milkiile ah saddex tacab oo abaarna qabatay wubigana wax aan ka waayni bi aan ka waayni erkana roob aan ka waayni taasna ilaahay xaqiisa ay ka dhacday alxamdulillah maanta ilaahay aaran waana si alxamdulillah haddana waxaan diyaar u ahay inaan aarankan hadda socdo inaan ka faa'iideysto aan wax ka tacbado ayaan jeclahay marka alxamdulillah marka haddana beerahan joognaa hawsha noo socoto insha Allah bishii oo guga ayaan ku jirnaa tacabka gugan haynaa wax walba galeyda bocorka sidii sabaaxiilka bocor cadaha bocor madoobaha inaan tacbano ayaan diyaar u nahay oo ilaahayna markaas kaalmo ilaahay nagu siiyo macaan waxa sheegtay waxa dhahday miya macnaha saddex tacab horay inaadan wax tacbanin waxba ma tacbanin saddex tacab horo ma tacbanin markaas biyaha wubigana ibrow ahay erkina ma taqaana roob waa ka wayni abaara iska jirtay maanta alxamdulillah ilaahay aaran noo keeni roobkii waa noo soo degdegi hadda waxaan jecelnahay inaan roobkan iyo aarankan inaan ka faa'iideysano daawadayaal wali waxaad daawanaysaan barnaamijka beeraha TV-ga dowlad goboleedka Hirshabelle qaybihii dhexe barnaamijka ayaa isla soo gaarnay markaana wasiir ku-xigeenka wasaaradda beeraha dowlad goboleedka Hirshabelle Maxamed Bashiir Qaasim Daqare ayaa kormeer indheendheenah ku tagay kanaalada iyo beeraha ku yaala tuulooyin ay kamid tahay tuulada Kulundi ee hoos yimaada magaalada Jowhar wasiirka ayaana ku qotamay booqashadiisa wax ka ogaanshaha sida ay u shaqeeyaan kanaalada kuwaas ay qoday wasaaradda beeraha dowlad goboleedka Hirshabelle iyo sida wax soo saarka beeraleyda xilligan ay u shaqeynayaan maadaama lagu jiro xilliga tacbashada ee ah xilliga guga beeraleyda wasiirka ayaana sheegay in beeraleyda Hirshabelle ama wax soo saarka beeraha magaalada Jowhar uu xilligan u joogo ama uu yahay 99% isagoo fariin u diray beeraleyda Jowhar kaasoo ah inay ka faa'iideystaan tababarada ay bixiso wasaaradda beeraha isagoo wasiirka baaq ku aadan wax soo saarka ama wax ka qabashada dhexe fatahaadaha ku soo noqnoqday gobolka Shabeellaha Dhexe u diray wasaaradda beeraha ee federaalka iyo hay'adaha ay khusayso arrimahaasi wasiir Daqare oo ka hadlaya arrimahaas ayaa waxa uu yiri sidan bismillahir rahmaanir rahiim maanta ay taariikhdu tahay bishii shanaad waxaan sameeynaynaa kormeerkaas oo ku saabsanaa inaan indheeyno sida ay kanaaladu u shaqeynayaan kanaaladii la qoday sidoo kale beeraleydu wax soo saarka sida ay ugu shaqeynayaan beerihii sida loo tacbay ayaan kormeeraynay annagoo fulinayna tilmaamihii madaxweynaha in la kordhiyo wax soo saarka lana dhiirigeliyay beeraleyda sida u jeedaan tacabkii wax soo saarkii degmada Jowhar waxaan dhihi karnaa 99% meel fiican ayay maraysaa haday noqon lahayd habka ay kanaaladu u shaqeeyeen beeraha sida loo tacbaayo waxa kaliya oo rabaa halkan inaan fariin ugu diro 99% beerihii tacabkoodii aad ayuu u fiican yahay 1% halka haray
waxaan rabaa in halkan fariin ugu diro sababta kanaalka loo qoday beeraleyda loo taakuleeyo tababarada loo siiyo in wax soo saarka la soo kordhiyo waa kuwa ugu talagalay in wax soo saarkii meeshii loogu talagalay beerihii ay u bedelaan meel caws lagu tacbo oo boqolkiiba hala si ay u gataan cawskaas waxaan ugu digaynaa arrintaas inay ka waantoobaan ruqsadii la siiyey ee beerta ku saabsanayd lagala noqon doono waxaan ugu digaynaa in arrintaasi ay ka tanaasulaan wax soo saara loogu talagalay beerahaas sababta kanaalada loo qoday waa sidaas waxaan leeyahay marka arrintaas ka waantooba beeraleydu waa arkaysaan talooyinkii wasaaraddu ay siisay sida beerta loo tacbay fiilfiilka loo tacbay sida ay hawsha u socoto aad ayaan noo raaligelisay waxaan ugu baaqayaa dhammaan beeraleyda Hirshabeelle in ay fasalkii ayaa lagu jiraa ay wax soo saarka kordhiyaan kuwa dhimanna ay tacbaan ayaan ugu baaqaynaa waxaan rabaa anoo jaaniskan ka faa'iideysanayo inaan baaq u diro sidaad ogtihiin fatahaadihii Hirshabeelle aad ayaan ula tacaalnay gobolka Hiiraan waxaan dhihi karnaa waa ka suulinay Shabeellaha dhexe waxaan leeyahay fatahaadi kama dhammaanayso ilaa ma sabuun wax laga qabto xawaaley wax laga qabto kanaalkii lagu neefin jiray ee Shiina kanaal wax laga qabto taasina waxay u baahan tahay waa arrin Hirshabeelle ka tan badan waxaan isleeyahay wasaaradda federaalka iyo Hirshabeelle wasaaraddeedu iskaashanayo inay u howlgalaan sidii deeq-bixiyaasha loogu dhaadhicin lahaa in kanaalka sabuun iyo xawaaley wax loogu qaban lahaa iyo kiliga Shiinaha ahmiyadda kale oo leedahay arrinta Shabeellaha dhexe kaligeed maaha Shabeellaha hoose sidaad ogtihiin sabuun iyo xawaaley waxay lahaan jireen meel oo biyaha lagu kaydiyo wabiga markuu noqona dib biyaha loogu sii deeyo si ay ugu faa'iideystaan beeraleyda Shabeellaha hoose marka barlamaad iyo mar saddexaad waxaan ku baaqaa maamulka dawladda Hirshabeelle sidoo kale tan federaalka madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabeelle wasaaraddeena beeraha federaalka inaan iska kaashano fasalkan si loo suuliyo fatahaadii Shabeellaha dhexe in sabuun wax laga qabto xawaaley wax laga qabto kanaalka Shiinaha ee lagu neefin jiray fatahaadana wax laga qabto webiga Shabeelle ee Marada ayaa sanad waliba waxa uu sameeyaa fatahaad xoogan oo geysta khasaare isugu jira naf iyo maal iyadoo maalmihii ugu dambeeyay webiga fatahaad uu ka sameeyay deegaanada dhaca dhanka bari iyo koonfurta magaalada Tanjawar haddaba goorme ayay soo bilaabatay fatahaadan iyo sidee loogu hortagi karaa ayaa wariyaheena TV-ga Hirshabeelle Cabdiraxmaan Guutaale Maxamuud su'aalahaasi uu weydiiyay waayo joog Cali Faarax oo kamid ah odayaasha aqoonta u leh arrimaha wabiyada iyo beeraha haddaba sheekada dhaxmartay wariyaheena Cabdiraxmaan Guutaale Maxamuud iyo waayo joog Cali Faarax ayaa waxay u dhacday sidan ku dhawaay TV-ga inta aan aniga ka ogaay waaya aragnimadayda oo waqtigii ugu simay oo maanta Ilaahay soo gaarsiiyay oo caafimaad qabo waxaan anigu ka soo gaaray 78 aan ku soo beeray mashruuca biyo xireenka ee sabuun shaqaalihii lagu wareejiyay xilligaas 74 ayaa la dhisay mashruuca biyo xireenka 78 wasaaradda lagu soo wareejiyay dadkii lagu wareejiyay ka mid ahay kormeeraan ka ahay mashruuca sabuun ilaa xawaaley ilaa kiliga dudulle intaas waxa loogu talagalay magaaladan inayna fatahaad soo galin fatahaadiye badanaa soo bixi jiray baari ka soo bixi jirtay ilaa buurfo iyo mareeri ka soo bixi jirtay oo wadadan gooy jirtay oo ilaa wadada xamar aajiro mooy ka meel yara marayso dib weyn lagu qabi jiray dawladii kacaanka waa ka fikirtay dawladda Sacuudiga heshiis la soo gashay mashruucaas biyo xireenka sabuuna loogu deeqay dawladda Sacuudiga fulisay qarashkiisa shirkad Ingiriisana way dhistay injineer Soomaaliyana way dhisay oo kamid yahay maareeyay ninkii looga dhigay Ibrahim Muuse Labaraat maareeyaha mashruuca laga dhigay injineerkii dhisowna ahay iyo injineer Jibriil labadaba waa dhinteen Allah u naxariisto nimankii gacanta geliyo oo mashruucaas gacanta ku hayay ahayd shirkad Ingiriisana waa qalabays kanaalku wuxuu leeyahay 7 irdood oo webiga ah iyo 5 irdood oo kanaalka ah waxa loogu talagalay inuu magaaladan fatahaada ka ilaaliyo oonkana uu ka ilaaliyo mashruuca Shabeellada hoose ee muuska Soomaali Fruit si uu u oomin biyo waaskay leedahay meel jidow ku taalo oo lagu kaydiyo biyaha oo la isaga wadaay guga iyo jiika oraxeedka la deynaa xilliga 31 December la deynaa webiga ilaa 31 oo Maarso aad iyo aad u soconaya beeraha waa ku najixeen ilaa meesha ugu dambaysa Sablaale
biyaha tooga loo siinayo oo ay ku najaxeen beeraleyda shirkadda Soomaali Fruudna waa nagala shaqeynaysay xilliga la deynayo webiga kanaal weyn u dhaxeeyo waaskada ilaa webigaas boglayna yiilay oo lagu xiraay ku xiridiis iyo furitaankiisa iyo qoditaankiisa shirkadda Soomaali Fruud ayaa gacan naga siinaysa ayaguna sidaas ay biyaha ugu najaxayeen qarashkiisa iyo shidaalkooda ayaga bixi jiray dawladdu waa burburtay qalabkii oo lahaay muxuu ahaay mashruuca waa la jijibiyay laba wiisho lahaay midna xawaalay maqdis meesha la yiraahdo wiil midna wuxuu yeelay mashruucan sabuun ee biyo xireenka halka ugu dhow oo la gaari karo oo laga shaqeeyo in mashruuca la maal geliyo in loo keeno qalabkii oo lahaay oo loogu talagalay oo sida caradaan oo kale webiga lagu qodo webiga hadda inta waa ka duubay waa kana wuxuu u baahan yahay bogleen halkaas la istaajiyo kaawada tuurta halkaas geeyo caradaan oo daldala 10 saaco wuxuu u banaynayaa dhul maasha Allah qalabkaas in la helay u baahan tahay qalabkaasna maalgelin loo rabaa dawladda isteedka iyo dawladda wasaaradda beeraha federaalka ayaa wax ka qaban karo iyo dadweynaha ilaahay wax siiyay haddii soo qaatama haday fatahaadada ka dhacay waxa waaye koow hurwaay ku soo bilaabatay bihi hurwaay ka baxay califool dheere bari ila caragadudkay ku dhifteen waa soo wareegteen hadda buula Axmed iyo dhulkaan ay ku sii beegihiin biyo xireenka sabuun ay ku sii aadiyihiin kuwii hurwaa ka soo baxay haddana waxa jira kuwa kale ka baxay shiidla baray buurfuule buula Axmed kulmis intaasoo dhan waa degmada mahaday dhibaatada fatahaada ay u geysatay way ilaa haddana xal looma helin jawaano fara badan la geliyay oo wasaaradda beeraha ugu deeqday ay ku garab istaagtay mahad ka gaadha wasaaradda mahadan aaga celinayna intii door oo la qaban karana jawaanadii waa laga shaqeeyay aad xoolaaley horaanba waxay ku nooleed jiinkaas ay ku nooleed jiinkii dhibaatada taagan waxa waaye biyaha hadda hurwaay ka soo baxayo sheegayo dhul jeebilow wixii dalag ahayoo sib ahayoo taagnaa oo mira ayaa ku baaba'ay fatahaad horta marka hore waxaa keeno in roob badan oo da'o kadibna webigii inuu meelo badan oo caratuurkeeda ama aad u jilicsan inuu maxalla webigii ka furmo kadibna meeshaas oo ku dhac maxaa fatahaad dadkina oo maxalla ku naqato inay maxalla deegaanadooda ka guuraan caqabadna ku naqato inay kaam deegaan ay caqabad kale u imaad marka xalka lagu xalli karo in fatahaadaha xal loo helo waxa waaye kow in webiga xilliga uu bannaan yahay waanan biyo wadin salahan bisha January February March bilahaas oo kale in caratuurada webiga in la xiro oo control lagu sameeyo ayadoo ay controlaan hay'adaha ku shaqada leh iyo wasaaradda qusuusa u horeysa wasaaradda beeraha kale sidoo kale in la sameeyo waxa loo yaqaan dadka deegaanka tuulooyinka inay sameeyaan isku xirnaansho inay maxaa la foojignaan ka sameeyaan tuulo kasto inay webiga dhanka uga aadan inay caratuuriyada aad ugu warayaan si hadhowto maxaa la hadii caqabad imaado si emergency loo gargaaro arinta labaad waxa waaye in qof walba mas'uuliyad ay ka saaran tahay salahan inay salahan oo kale gudoomiyaha xaafadda kale ama tuulada webiga jiinkiisa saaran inay sameeyaan team qaas oo loogu talagalay inay fatahaadaha ka warayaan si caqabad markay imaado xal loogu helo in webiga markuu banaan yahay salahan oo kale buundooyinka kale hadda ka soo qabo buundada zabuuna kale qoryo waxa soo jiro qaraas in laga bixiyo webiga inuu soo neefsado oo maxalla si fiican u soo socdo sidoo kale in meeshan xiintooyinka kale waxa jiro meel caratuur ama ciid dhaxda ku taalo kale in laga bixiyo qaar waa laga bixiyay inta kale in laga dhameystiro waxay caawinaysaa in biyaha xoolo fiican ku socdaan toos u gudbaan caratuurida in la dhameystiro marka hadii la helo xilli ku haboon oo in xilliga webiga banaan yahay la sameeyo maxalla webiga meelaha uu ka banaan yahay laga buuxiyo waxa waa laga faa'iideysan karaa laakiin mar hadduu fatahaad imaado xal ma jiro xal hadduu jirno waxa waa meelaha ugu daran in gacan isha lagu hayo bay noqonaysaa laakiin solution rasmi waxa waa inta uu webiga banaan yahay haddii webiga eber yahay wax kasta waa laga sameyn karaa xataa cagaf dhex geli kara baddo soo dhex geli kara saambal dhex geli kara wax kasta la sameyn karaa marka solution waxa waa xilliga uu webiga banaan yahay in laga faa'iideysto
وهاجاك داود يا الجوتان وحن جعل إن أنت سكوسو جبجبية برنامج كبيرها تي في دولة جولة هيرشبيلة oo toddobaadkii mar aad ka daawataan barnaamijkan toddobaadkii waxa halkan idin kala socodsiinaya anigoo ah Maxamed Deeq Yuusuf inta barnaamijkan kiisa xigana dib u kulmi doonno waxaan idinkaga tagayaa sidaas iyo nabadgelyo iyo horumar wanaagsan